بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. وحنك بالله بإن إن شاء الله درسي أن تفسير جزء أقدم بي قرآنك سورة عامة قرآنك كريم تفسير كيسا يمعنيه صلى برصه وأرين رنتي هذه مهمة إلهي القرآن كوحي أسود الشيء ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن معناها أفي الصدان وضدكم معناها قرآن كفهمان كدبنا يكو عمل فلا مركب فهمك هي أتشدد أوه الرئيسة حتى حفظك قرآنك وحكم مهمسا فهم كيس مركب اللغة العربية لغة العربية هيد أما الروح اللغة العربية يقنا فهمي كرا أما الروح الله فسره ساس درادت بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كمرك النبي كبرنا يان وحي مركب ورقادن شيرين 10 آيات 10 كآيات أي معناها كتيرة يجب برانشرين marka kadib ay 10 kala qaadan jireen sidaasay quraanki iyo cilmigii ku jiray iyo amal falkiisiba hal mar u wada qaateen laakiin inaga qaabkan wax u barano waxa inaga khaldan quraanki oo dhan baan wada naqaanaa bal waxa dhici karta inaan wada xifdisanay laakiin inaan garanaynin waxa uu ka hadlayo iyo cid uu la hadlayo iyo muxuu jideynaya iyo muxuu diidan yahay iyo muxuu ogolay marka waxay u baahan tahay inuu ruuxu quraanka macnihiisa xoog saaro fahamkiisa quraanka marka suuradahan dambe ee hoose inta badan waxay ka hadlayaan arrimaha waaweyn ee asaasiga ah ee waqtiga quraanku degahayay ay gaaladu diidanayeen mabaadiida waaweyn ilaa ay haddana ay in badan oo iyaga kamid ah diidan yihiin mabaadida waaweyn waxa kamid ah noloshan adduunyada hadda joogno inay jirto mid ka dambaysa oo markii la dhinto kadib aan sida lagu dhamaanayn ee dib la isu soo nooleyn doono oo dib loo soo noqon doono oo la isla xisaabtami doono oo janniyo naar ay jiraan nolosha dambe iyo aakhira bay ka doodsanayeen gaaladu way diidanayeen ma dhici karta ilaahay sababtu waxay lahayn jirkani markuu carradu cunto baabao kadib oo dhacaankii baabao lafihi baabaan wax walba ay carradu dhamaysato seeba loo soo celin karaa yaa awooda leh mas'uuloobi karta dhinac kalena waa ka doodayeen waxay lahayn jirkan kala dhamaadee dhacaankiisina meel galay lafihi baabeen hilibkii iyo kulli eber noqdeen yaa cilmi u leh oo shay walba meeshuu galay garanayo soo celin doona doodaasi waa dood marka quraanku aad uga doodo la soo celceliyay si looga dhaadhiciyo inay aakhira jirto suuradani marka suuratu amma ama suuratu naba mawduuca ra'iisiga muhiimka ah ee ay ku wareegayso waa mawduucaas waay inay soo saari jirto xisaab jirto dadkuna qaybsami doonaan meelaha lagu kala dambayn doono hawlaha jiri doona taasay ka waramaysa suuradu waxay ka mid tahay quraanka qaybtiisa makkiga ah makki waxa la yiraahdaa quraankii soo degay intuu nabigu soo hijroonin hijrada ka hor quraankii soo degay baa makki la yiraahdaa mawduuciye khaasuna ka hadla makkiga hadaad maqasho hijradii nabiga kadib quraankii soo degayna madani baa la yiraahdaa موضوعية خاصة انت بدن بو بدن yahay iyadana inuu ka hadlo mawduuca marka muhiimka ra'iisiga suuradu ka hadlayso oo qiyaamada iyo aakhira iyo soo saarida kaasay ku bilaabatay rabbi wuxuu yiri tabaaraka wa taala bismillaah magaca alle ayaan ku bilaabaynaa alihi arrahmaani naxariista guud naxariista waa adduunyada naxariistiisa khalqiga gaalka iyo muslima wada gaaraysa naxariisanaya
الرحيم نحريست قارك أنا نحريست ووامد مؤمنين تيددك وتشعليه خاص ككوة تانو نحريسته معنى وحوي إلهي الصفة وحوليه النحريسات لوضع مقعنا وليه الرحمن الرحيم ومقعدي الله عما محيبي يتساءلون اسويدينيان عن النبأ وركي حقيس العظيم ويناء وركي ويناء عجبت بدنا محي اسكويدينيان الذي كاسو هم إيو فيه دحديسة مختلفون كوا اسكو خلاف سن أيهين ووروين ويسويدين يا ويهدنا اسكو خلاف سنيهين قار كشك سنيهين قار ديدينهين قار بأي هايسي كرميسيهين كلا والله تبارك وتعالى كلا هكتشوجين يعني بينين تأي بينين يا يديدة أي ديدين هدا يوحشر معه سيعلمون ويأوغان دونان وهنشباد ها ويأوغان دونان محي أوغان دونان وحا إيمان تبينين يا حقيقة دي سيأوغان دونان ثم كذبنا كلا هكتشوغين أرنكاس سيعلمون ويأوغان دونان قالوا علي بمعنى وحا أي وسويدين يا oo warka weyn ilaahay ka cabiray sida loo badan yahay ama raajixaba ah waa bacsiga isa soo saarida dambe tiibay isweydiinayaan waana arin weyn waa naba waa war aad u weyn waa arin halis ah arin la isweydiiyo maba ahaba arin la rumayn lahaa waay tiibay iswarsanayaan oo hadana isku khilaafsan yihiin say isku khilaafsan yihiin haddaan ka dhigno aayadu inay ka hadlayso gaalada kaliya gaaladu waxay isku khilaafsan yihiin isa soo saarid iyo nolosha dambe qaar way shakisan yihiin qaarna way beeniyeen oo ma ogola qaarna way rumaysan yihiin laakiin si dhansaar oo khaladay u rumaysan yihiin wax khaladay ka rumaysan yihiin marka way isku khilaafsan yihiin arrinka maxay iska weydiinayaan waa Allah tabaaraka wa tacaala marka waa u hanjabayo wuxuu ku yiri arrintaasi say sheegayaan ma aha hadaayeene way ogaan doonaan waxa ay sameynayaan cilib xumada ka dhalata way ogaan doonaan hadana way ogaan doonaan baa leeyahay maxaa laga wadaa culimada qaar waxay leeyihiin tan dambe tii hore bay xoojinaysaa qolab kala waxay u sameynaysaa macna aan kii hore ahayno waxay leeyihiin kalla sayalamuuna way ogaan doonaan عند معاينة الموت مركي جيريدا أركانه لوسو حاضره مركا ويأركي دونان ويأوغان دونان وحي هذا كمرنسين ثم كلا سيعلمون مركا لي هدنا أوغان دونان وقورما مركا يقبرق الجلان مركا لصوص هارو حقيقة دي ويوتيجي دونان مركا لو قورو كلا دنبيسا أما حالة كلا دنبيي أوغان دونان وحا أيمانتي ديدين حقيقة ديس انت صلي عما يتساءلون محي اسويدينيا عن النبأ وركي حقي سأل عظيم ايوينا ويسوسو صاردا الذي كاسهم يجو فيه دحديسا مختلفون كو اسكو خلاف سن ايهين كلا هدايين ارنكا هجوجين سيعلمون ويوغان دونان ثم كذب كلا هدايين اركاس سيعلمون مركلي اوغان دونان طهره waxaynu niri waa marka geeridu ku timaado ee nafta laga qaaday marka labaad ay ogaan doonaan waa qabriga iyo wixii ka dambeeyay oo waxay diidanayeen ka muransanayeen ay arki doonaan inta markii la sheegay kadib waxa la yiri Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu marka rabaa inuu u sheego awoodda uu u leeyahay soo noolaynta dambe oo waxyaalo ka waaweyn buu alla sameeyay maxay la tahay maxay se dhan tahay naf dhimatay inuu dib u soo celiyo تيبا مرك إلهي أود أوليه بمرك آياتها كهالله طيب ألم نجعل ميانا يرين بأليل الأرض دولكي مهادا ميانا جوجلك يلي دولك أداركتين سومانا جوجلين ها أو مد سخرا أو إدين جوجلن أو تكدل الصعوتان أو تكد تصرفتان سو الله كما دقين
والجبال بورهينا سومانا كردقين بو ألا يدي أوتادا لكويو أوتاد جمع ويوتد باب مفرد كاه وحانا اللي يدا هذا تيندada marka la dhiso muxuu ahaayay biro ama qoryo la qoray baa dhulka loogu mudaa markaas xarkaheeda lagu xidhaa Soomaa qoryahaas marka teendada haya marka kuwaas la yiraahdaa awtaad la yiraahdaa marka buurihi baa waxa laga dhigay dhakawyo dhulka haya say dhulka u hayaan li alla tamida bikum inayna dhulku idin la dhaqdhaqaaqin idin la dheeliyin idin la ruuxanin buuraha sahaya wal jibala buurihina miyaanan ka yeelin buu alla yiri awtaadan dhakawyo dhulka isu dheelitiraya oo inuusan liicin inuusan dheeliyin inuusan isbaraambarin ka ilaalinay wa khalaqnaakum soomanan idin abuurin azwaajan idinkoo noocya waxa laga wadaa idinkoo lab iyo dhadig ah si aad isugu raaxaysataan isugu xasishaan u tarantaan rag iyo dumar baan idinka dhignay waja'alna waxaanu yeelay oo Soomaana yeelin weey nawmakum hurdadiinina subatan goyn ama gu'id dhaqdhaqaaqiini iyo shaqadii iyo xarakadiini baa go'aysa markaas aad nasanaysaan subaadka saasalna subaadka waa goyn maxay goynaysaa hurdadu waxay goynaysaa dhaqdhaqaaqi iyo shaqadii iyo jirkii taagnaa bay goynaysaa markaas uu nasanaya waja'alna miyana kayelin nawmakum hurdadiina subatan goyn dhaqdhaqaaqiini go'ayood nasanaysaan waja'alna miyana yelin al-layla habeenkii libaasan astur Soomaana idinka yeel habeenkii sida labis oo kala waa sida dharku jirkaaga u asturo kale ayaa habeenka mugdigiisu markuu soo galana waa astur oo wixii dhan buu kala asturay maalintii waxay ishu qaban lahayd habeenkii ma qaban karto sidii marabku saaran oo kala waa tayib waja'alna wa miyana yelin an-nahara maalintiina macaashan waqti aad ceeshtaan macaashka waxa la yiraahdaa bimaana waqti aad shaqaysataan oo aad guriyaha ka baxdaan oo shaqo tagtaan oo waxaad ku noolaan lahaydeen soo kasbataan habeenkii mugdi baa laga dhigay maxaa la nasiina loogu talagalay wala seexana wala nasan maalintiina iftiin baa laga dhigay alshaani waxa loogu talagalay in la ceesho oo la baxo oo la shaqaysto la xamaasho muxuu ahaayay la beerto xoolaha la foofsado macaashka saasa laga wada waja'alna an-nahara maalintii macaashan miyana ka yeelin yani nolol miyana ka dhig waqti aad ceeshtaan oo shaqaysataan وبنينا سومانا لسن فوقكم كركينا 7 تضبا سمو شدادا او ادك كركينا سومانا تضبا سمو او اد او ادك سومانا كدس سمدو وا تضبا اسدول ساران وا waxa la yiri aad bay u adag yihiin inay adag yihiin waxaad ku garanaysaa intaasoo kun oo sano ayaa martay iyagoo dhisan haddana waxba iskama bedelin dayactirna uma baahan sooma wax dayactir uma baahan waxaad ku garanaysaa marka inay shidaad yihiin oo si adag ilaahay u dhisay wabanayna fawqakum korkiina Soomaanaan ka dhisin 7 toddoba samo shidaadan oo adag waja'alna Soomaana yeelin siraajan faynus wahaajan oo aad u ifaysa yani wala walaynayso iftiinkeedu aad u badan adag oo waliba kulay la socdo waa qorraxdii u fiirso waxa laga dhigayaa dhulkii baa la goglay samadiina waa la dhisay tiirarkii oo buurahana waa lagu adkeeyay muxuu u baahan yahay marka faynus buu u baahan yahay sooma marka faynus aad u iftiin badanna waana yeelay buu waxa laga wadaa qorraxda laga wadaa waja'alna waxaanu yeelay siraajan baan yeelay faynus wahaajan oo wacalaynayso aad u ifaysa qorraxda laga wadaa wa anzalna Soomaanaan dajinin min al-mu'sirati ضرورها حقوده معصرات waxa laga wadaa daruuraha waxaana mu'siraad loogu magacaabay laana yani way maroojismayaan marka dhibicdu ka iimaanayso sidii mara aad maroojisay oo kale oo miirtay oo kale noqonaya
daruurta waadiga arkay markay dhibicdu ka timaado markay dhibicdu ku jirto kaana waxaad moodaa sidii neef caana wada oo kale markay dhibicdu ka timaado daruurtii waa isku dhaxdhacaysa marka way miirantay waja'alna ma suman wa anzalna wa ansudajinay way min almu'sirati darurihi yani maroojismahaye miirmayay ma anbiyaan ka soo dajinay thajjajan oo si usdaba joogo xoog u socda thajjajku waxa weeyaan yani qubanaya oo si isdaba joog u socda biyahaasanu soo dajino daruuraha ka keenay maxaa daruuraha biyaha looga keenay linukhrija inaan saarna darteed bihi biyahaasi inaan ku soo bixino habban badar raashinka la kaydsadee la cuno wa nabatan iyo nabatkana waxa la yiraahdaa waa waxyaalaha ayaga oo curdan oo qoyan la cuno ama xooluhu cunaan ama ibn aadanku cuno wa jannatin inaanu ku soo bixino iyo beero alfaafan oo muxuu ahaayay isku duuban beero aseendooyin beero waaweyn geedahoodu intay aad u baxeen ay isku marmeen oo laamihii madaxa isla galeen alfaafka saas la yiraahdo yani laamihii baa isu imaanaya markaas ay isdhaafayaan oo isku marmayaan waa beero barwaaqo aad u waaweyn way macna wajannatin inaanu soo saarno beero alfaafan oo isku duuban oo isku maran oo laamahoodu isku maran yihiin intaas oo dhan Soomaaliya yeelin waay jawaabtu maxay tahay ha sooba طيب الله intaas oo dhan sameeyay naf dhimatay oo dhulka ku baabaaday inuu soo celiyo miyay ku adagtaa ya kuma adka waay intaas marka maxay daliil u tahay war Soomaalidan doodiinu ma ahayn markaan dhimanno nalama soo celin karo yaa awoodaale oo waxaad sheegaysaan ba ka weyn baaba la sameeyay maxaa sheegaysaan idinka shalay intaad dhimateen dhulka in la idinka soo celiyo maxay adayg weyleeday Allah dhulka goglay oo buuraha dhakawyo uga dhigay oo idinkoo lab iyo dhadiga idin abuuray oo hurdadiina raaxa idin ka dhigay oo habeenka mugdigiisa labis idin ka dhigay oo maalinta macaash iyo midaad shaqaysataan ka dhigay oo muxuu ahaayay korkiina toddobada same ee aadka u adag ka dhisay oo muxuu ahaayay qoraxdaad aragteen ee iftiinkaad aragteen la abuuray oo samada ka soo dejiyay daruuraheeda dhibicda ka keenay oo daaqa iyo dalaga iyo beeraha iyo ku soo saaray waxan kala gedisan war Allah intaas oo dhan sameeyay naftiina yartoo dhimato dhulka gashay inuu dib u soo nooleeyo wax ku adag ba ya wax adag ma saddex arimood oo quraanku inta badan arintan markuu ka hadlayo u daliishado saddex meesha lagu sheegay waa mid Ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa say u balaaranta waa mid labaade adduunka idinkoo jooga waxaad haysaan idinkoo dhimanayo haddana soo noolaanaya aaway daliilkeedu te markaad seexataan oo hurdada gasho soo meyd oo kala mati وهو الذي يتوفاكم بالليل meyd oo kala waa haddana markaad soo kacdo soo toosto kaanaadoo soo noolaado kale ka dhiganta qaabka saddexaad ee quraanku ama aayadku ay daliilka u keeneen waxa weeye dhulku markuu nabaad guuro abaar noqdo oo ingego waa meyd markay dhibicdu timaado oo dalagii soo baxo oo daaqii soo baxo oo dhulkii qurux noqdo waa noolaaday waa meyd la nooleeyay waay intaas oo dhan idinkoo arkaya haddana maxaad u diidantihiin in la idin soo nooleyn doono aayadku marka saasay u hadlayaan su'aal baa marka iimaanaysa طيب hadii ay laysa soo nooleeyo laysa soo celinayo maxaa la sugayaa haddaba ma la keeno kuwii hore u dhintay ma la soo celiyo haddaba markaas laga jawaabaya waxa la yiri inna yawma al-fasli